كارشان بشانيتو مرايتها ساعة شنت ساعة يو 6 دقيقة dadku waxay saaday covid-19 oo county Mandera ayaa telefoon ka helay isbitaalada Mandera dadkaasayto oo sheegay laba ruux oo tugni inay arkeen sheegay kadib marka dabagala la hagaajay labada ruux waa soo waxa la geeyay meeshii isolation center isbitaalka referral Mandera sidoo kale laba dhakhtar oo dadkii u adeegayso isbitaalkii joogtay ayagana waa soo qabanay waxa la geeyay ayagana Mandera County Referral Center dadkii dahay dhiig ayaa laga qaaday waxa loo diray Nairobi si baaritaan loogu sameeyay in cudurkaasayto ay qawaaniin labada ruux oo ku tuumayay cudurkaasayto oo ka imaaday Kilifi kadib midna soo martay Nairobi ku soo safreen baas قبل لا نيروبي وجاء غاريسا وجير إلى مندرا وعنينا قاعدين نادك يرهد إن لو أركي قدرك كوفيد-19 وحنو باغينا ذكي قصص سفري باس كاسيتو باس كاسون مكة باس قصص سفري مالتي ثلاثة مكة هيد شارد سودوني كو بش أفراد كنا يصوم بهيان ويتغان مل الله ليش ودو و حول عفمات أما هاي نفعان طود هاي إزجليان كارن هاي سي أي أفرت لاتين يو كوج بري أو لو ترجع أول رستان هم بقى إذا تكاسيتو وليان طود هقوي كذا كوج لاتين بري هاي قن إننا عن أي استحقني أما استل الله استل كودو أي أذان سيدو كلوتو كاونتي المندرة waxay dabgal ku hagaajinaysaa cid alla iyo cid labada ruux shakhsi ay xiriir ay lahaadeen ay yeesheen ilaa ay hadda gurigii ay dadkaas ku soo degeen iyo dadkii ay xiriir yeesheen 14 ruux ayaa quarantine la gelin oo meel lagu haya taasoo baaritaan lagu hagaajinayo ayagana dhiigooda la qaadayo dib indhana Nairobi loo qaadayo oo la soo celinayo taas marka waxay cabsi badan keenaysaa cabsida badeed oo jirtay in cudurkii marka maror waa laga marnaa oo Mandera la joogo la isku gudbin kara shakhsi kala soo gudbin kara cudurkaani to sidaan sheegnay dabaysha laga qaadi kara masaba la istaabto labada waa laga qaadi kara marka cabsidii marka aad iyo aad ay kordhaysaa waxaan garab taaganahay go'aankii uu madaxweynaha Kenya President Uhuru Kenyatta uu sheegay Nairobi iyo Coast Mombasa Kilifi Kwale in la xir quarantine la geliyo baadi aan laga soo bixin taasoo laga caawinaysa hortaga cudurkaani waxaa sidoo kale madaxweynuhu sheegay in diyaaradaha indana ay dhaqaaqi karin oo isoo gudbi karin ka soo bixi karin Nairobi mas'ala Mandera taasoo saameyn fara badan ugu lahaanaysa hadii aan ahayn dadka reer Mandera sababtoo ah qofka markii dhiiggiisa la qaado waxaa loo dirayaa Nairobi ilaa ay 4 beri meelaha sayto ay qaadeen kadib ayaa soo celinayaan jir taas marka waxay noqonaysaa dad badan inay waqti dheer ay qaadato baaritaanka ay waqti dheer ay qaadato waxaan ka codsanaynaa wasiirka caafimaadka Kagwe in Kemri uu xarun ugu furo county Mandera si baaritaan looga hagaajiyo county Mandera cudurrada sayto waxaan rabnaa inaan ku